بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونكسر دعوة halkani waa telefishinka Tasniim Muqdisho waxaan kusoo gudbinayaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha waa dilaado taariikhda waxay ku beegan tahay 22 bisha July sanadka 2025 warbixinada daqiiqada soo aadan saaxiibyaal barnaamijka aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka ah Hugo Ekitike oo maanta tijaabada caafimaadka u maraya Liverpool iyo mushaaraadka xidigan ku qaadan doona nadigaasi oo shaaca laga qaaday barnaamijka aan kusoo qaadan doona sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa Bayern Imbumo oo shaaca ka qaaday sababtii ugu beeray kooxda kubadda cagta Manchester United iyo waxyaabo badan oo ka hadlay kadib ku biirista Manchester oo soo bandhigtay laacibkan barnaamijka aan kusoo qaadan doonaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa sababta uu mar kale Victor Gyökeres isaga diiday kooxda kubadda cagta Manchester United oo shaaca laga qaaday isaga iyo Robin Amorim la warinayo in isku dhac xoogan uu soo dhaxgalay barnaamijka saaxiibayaal kusoo qaadan doonaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa ciyaartoyda kooxda kubadda cagta RB Leipzig Xavi Simons waxa uu kala doortay kooxda uu ku biirayo kooxaha Chelsea iyo Arsenal hadda waatay kooxda uu doortay barnaamijka saaxiibayaal kusoo qaadan doonaa waxaan kala soo gudbin doonaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxay dalab amaah ah iga gudbisay kulaayaha kooxda Aston Villa Emiliano Martinez iyo jawaab degdeg ah oo ay kooxdaasi heshay barnaamijka saaxiibayaal kusoo qaadan doonaa kama wargeysada waxyaabaha ay ka soo qorayaan suuqibka ciyaartoyda aan soo bilaabo saaxiibayaal barnaamijka faaqidada ciyaaraha dalsan TV ciyaartoyda cusub ee kooxda kubadda cagta Liverpool Hugo Ekitike ayaa maanta maraya tijaabada caafimaadka isagoo Liverpool ku biiraya sidoo kale waxaa shaac laga qaaday lacagta mushaaraadka ah ee uu laacibkan ka qaadan doono kooxda kubadda cagta Liverpool Hugo Ekitike ayaa maanta tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Liverpool kadib markii la dhameystiray lacag badan oo kaga soo wareegay kooxda Eintracht Frankfurt waxaana wariyaankan uu qaadan doonaa lacag ka badan tan haatan uu qaadan doono saxiix cusub ee kooxda Liverpool Florian Wirtz kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa heshiis waxay kala gaartay laacibkan dhigkeeda Jalmarka ee lagu magacaabo Eintracht Frankfurt 3 jirkan ayaana ku soo biiraya kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa u dhaqaaqday Ekitike kadib markii Newcastle United ay ka waayeen wariyaanka reer Sweden ee Alexander Isak kaasi oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee tababare Arne Slot iyo kooxda Liverpool Florian Bellenberg ayaa sheegay in wariyaankii hore ee Paris Saint-Germain uu maanta mari doono tijaabada caafimaadka kooxda haysata horyaalka Premier League sidoo kale waxa uu wariyahan shaaca uu ka qaaday mushaaraadka uu ka qaadan doono kooxda kubadda cagta Liverpool saxafigan caanka ah ee lagu magacaabo Florian Bellenberg ayaana sheegay in wariyaankan uu jeebka ku shuban doono lacag dhan 15 milyan ama 13 milyan sanadkii inta uu ku sugan yahay garoonka Anfield kadib markii la ogaaday heshiis 6 sano ah oo uu kooxdan u saxiixay kuna ekaan doona dhamaadka 2031 Hugo Ekitike oo uu helo haddii Hugo Ekitike uu helo 13 milyan oo buuxa xiliyaareedkiisa inta uu ku sugan yahay naadiga Liverpool xidiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ciyaartoydooda da'da 22 jirada ayaa durbaba wuxuu noqon doonaa qofka saddexaad ee ugu mushaaraadka badan kooxda sida lagu sheegay xog ka soo baxday ama xogta Capology Galiya Mohamed Salah Virgil van Dijk iyo sidoo kale laacibka lagu magacaabo Galiya Mohamed Salah iyo Virgil van Dijk ayaa ka badnaan doona mushaaraadka Ekitike kaasoo 13 milyan uu noqonayo mushaarkiisa inta uu joogo naadiga Liverpool waxaana uu ka sarmari doonaa saxiix cusub ee naadiga Liverpool Florian Wirtz kaasoo isaguna lagu soo waramayo in sanadkii Liverpool uu ka qaadan doono 10 milyan oo kani 23 jirkan ayaa naadiga Liverpool waxa uu ugu soo biiray naadiga Eintracht Frankfurt ee ka ciyaarta gudaha wadanka ee Jarmalka Ekitike ayaa ka tagaya Frankfurt isagoo leh rikoor wanaagsan oo 26 gool iyo 14 caawin ah 64 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan sidoo kale waxa ku jira 22 gool oo xiliyaareedkii la soo dhaafay 2024 uu saxiixay kooxda Jarmalka ka ciyaarta laacibkan lagu magacaabo Ekitike ayaa laga yaabaa inuu Liverpool u ciyaaro kulankiisa ugu horeeyay labada kulan ee saaxiibtinimo oo Liverpool ay la kala ciyaari doonto kooxaha Atletico Bilbao iyo sidoo kale AC Milan labadaas kulan ayaana la leeyahay mid kamid ah ayuu noqon doonaa kulanka ugu horeeya ee u ciyaaro kooxda kubadda cagta Liverpool Hugo Ekitike kaasi oo qiimo gaaraya 95 milyan kaga soo wareegay naadiga Eintracht Frankfurt maanta ayaa la rajeynayaa laacibkan inuu tijaabada caafimaadka u maro si rasmi ah u saxiixo heshiis 6 sanadood ah oo ku ekaanaya sanadka 2031 halkaas ayuuna ku sii sugnaan doonaa garoonka Anfield ciyaartoyda lagu magacaabo Hugo Ekitike waxaana uu noqonayaa ciyaartoyga saddexaad ee Liverpool ugu mushaaraadka badan isagoo laacibkan sanadkii Liverpool ka qaadan doona lacag gaaraysa 13 milyan dhinaca kale saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta Manchester United Bayern Imbumo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay sababtii ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo laacibkan kooxaha waaweyn ay xiiseynayeen isla markaana ay ka mid yihiin
Tottenham Hotspur, Arsenal iyo sidoo kale Newcastle ayaa kamid ah kooxaha ay siinayeen laacibka reer Cameroon. Saxiix cusub ee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa taa ka qaaday sababtii uu kooxda ugu soo biiray kadib ereyadiisii ugu horeeyay tan iyo markii 71 milyan ugu soo wareegay kooxda kubadda cagta Manchester United. Ben Mbeumo ayaa si rasmi ah u ah ciyaaryahan United ah iyadoo Redi Feliz ay xaqiijisay inuu u dhaqaaqay laacibkan ku dhawaad 2 bilood tan iyo markii ay dalabkooda ugu horeeyay miiska ay u saareen ciyaartoydan lagu magacaabo Ben Mbeumo kaasi oo kasoo jeeda wadanka Cameroon kooxdiisa Brentford. Mbeumo oo 25 jir ah ayaa cadeeyay inuu galiyo doonayo ku biirista Man United inkastoo uu cadaadis kala kulmay naadigiisa Brentford si uu u dhageysto dalabka kooxda ay xifaaltamaan ee Tottenham Hotspur. United kuma faraxsaneen qaabka ay ula dhaqantay kooxda kubadda cagta ee Brentford kadib wadahadaladii ay ku dooneysay laacibka reer Cameroon ee Ben Mbeumo. Sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in kooxdiisu cadaadis ay ku saartay laacibkan inuu hoos u dhigo dalabaadka mushaaraadkiisa si United ay ugu soo bandhigto qiimo weyn oo suuq liibsiga ciyaartoyda laacibka lagu magacaabo Ben Mbeumo. Brentford ayaana si walba waxay doontay inay ugu adkeyso kooxda kubadda cagta Manchester United isla markaana ay ka hor istaagto laacibka, balse Ben Mbeumo ayaa isagu waxa uu ahaa mid kaliya ku fikiraya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Si kastaba noqotee waxaa jira nafsis ku hareersan garoonka Old Trafford isla markaana ugu dambeyntii waxay noqotaba mid iyagu dhameystira ama ay dhameystiraan la soo saxiixashada laacibka lagu magacaabo Ben Mbeumo kadib markii uu laacibkan si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta Manchester United oo soo bandhigtay waxa uu durbadiiba ka hadlay sababihii ugu biiray kooxda kubadda cagta Manchester United. Mbeumo oo hadlay ayaa yiri isla markii aan ogaaday inay jirto fursad aan ugu biiri karo Manchester United waa inaan ka faa'iideysto fursadda aan ugu saxiixi karo kooxda riyadeeda ah. Maskaxdeedu waa inaan mar walba ka fiicnaado sidii aan shalay ahaa. Waan ogahay inaan leeyahay ruuxa iyo dabeecadda aan ku gaaro heer kale halkan anigoo waxaan bartaa Ruben Amorim oo aan ka qarab ciyaaro ciyaartoy heer caalami ah ayuu hadalkiisii raaciyay. Ben Mbeumo markii ugu horeysay isagu hadlay kadib ku biiristiisii kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Qof walba wuxuu ii sheegay deegaanka halkan laga abuurayo iyo sida ay u xiiso badan yihiin qorshayaasha mustaqbalka. Tani waa koox weyn oo leh garoon cajiib ah iyo taageerayaal cajiib ah. Dhammaanteen waxaan go'aansanay inaan u tartanno koobabka waaweyn ee xilliyeedka soo aadan ayuu hadalkiisii raaciyay laacibka lagu magacaabo Ben Mbeumo kaasi oo markii ugu horeysay ka hadlay sababihii ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Manchester United isagoo sheegay in Manchester ay tahay koox uu jeclaa ilaa iyo caruurnimadiisii isla markaana uu nasiib u yeeshay in markaan uu xirto maaliyadda cas ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester ayaan ciyaartoydan waxa ay ka soo qaadatay naadiga Brentford iyadoo markaasi kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur oo iyadoo ahayd kooxda loolanka adag ay kala kulmaysay maadaama naadiga Tottenham ay tababare u magacaabatay tababarihiisii hore ee Thomas Frank kaasi oo ka hayaama Brentford isla markaana qabtay shaqada tababarnimo ee Tottenham ka uu hore u baneeyay tababarihoodii hore ee Ange Postecoglou. Ugu dambeyntii laacibkan ayaa la soo bandhigay isagoo la siiyay lambarka 19 oo ah lambar uu xiran jiray kooxda kubadda cagta Brentford. Lambarkaana hore Manchester waxa ugu xirtay ciyaartoydii ugu dambeeyay uu ahaa laacibkii hore ee Faransiiska iyo Real Madrid Rafael Varane. inkastoo ciyaartoy badan ay soo qaateen Amad Diallo ayaa kamid ah ciyaartoyda kale ee soo qaatay lambarka 19aad ee la siiyay laacibka lagu magacaabo Ben Mbeumo kaasi ugu dambeyntii si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta Manchester waxaana kamid noqon doonaa kulamada Manchester ee isku diyaarinaysa xilciyaareedka cusub 2025-2026. dhinaca kale saaxiibayaal waxaa shaaca laga qaaday sababta mar kale weeryaanka lagu magacaabo Victor Gyökeres ee u ciyaaray naadiga Sport Lisbon uu isaga diiday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo laacibkan la warinayo in mar kale isku dhac uu dhaxmaray isaga iyo tababarihiisii hore ee Ruben Amorim kaasi oo hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee Manchester United. weeryaanka reer Sweden ee Victor Gyökeres ayaa marar badan waxa uu iska diiday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana sababta ugu weyn la rumaysan yahay inay tahay diidistiisa in mar kale uu la shaqeeyo tababarihii hore ee Sport Lisbon Ruben Amorim oo haatan hogaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester. inkastoo la sheegay in United ay heshiis la gaartay Sporting isla markaana ay ka doonayso Gyökeres balse ciyaartoyda Victor Gyökeres ayaa diiday dalabkaasi kadib markii uu qaatacay inuu la midoobo Ruben Amorim mar kale. waxaa la shaaciyay in laacibkan iyo Amorimba uu khilaaf weyn uu ka dhaxeeyo waqti xaadirkan. Amorim ayaa la sheegay inuu doorbidayay in kooxda laga saaro Victor Lindelof oo saaxiib dhow la ah laacibkan isla markaana hal wakiil ay wada leeyihiin Victor Gyökeres. dalabadaasi ayaa si
weyn uga careysiisay Victor Gyökeres taasoo sababtay inuu si adag uga soo horjeesto fikirka ah inuu la shaqeeyo mar kale tababare Ruben Amorim. Gyökeres ayaa si cad u doonaya koox u qalanta Champions League ama hanashada koob waaweyn. Manchester United oo aan qayb ka ahayn tartamada Yurub xilciyaareedka soo aadan iyo qalaase gudaha ayaa door weyn ka ciyaartay inuu ka tanaasulo xiisihiisa Manchester United. wakiilada Gyökeres ayaa si rasmi ah ugu wargeliyay United inuusan diyaar u ahayn heshiis kasta iyadoo Arsenal ay u muuqato meesha uu doorbidayo koox leh mashruuc adag isla markaana laacibkan Victor Gyökeres ayaa isagu waxa uu rabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Arsenal oo marar badan ugu celceliyay inay tahay kooxda kaliya ee uu ku biirayo. sidoo kale Fabrizio Romano ayaa shaaca ka qaaday in laacibkan kaliya ay ka go'an tahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Arsenal isla markaana kabi ahaanba uu iska diido xiisa uga imaanaya kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo sidoo kale kooxaha ka ciyaara horyaalka wadanka Saudi Pro League iyadoo Sport Lisbon ay doonayso in laacibkan ay qarshaad badan ay ku hesho maadaama wax badan oo qarshaad ah uu kooxda uu ka lumiyay inta uu ka maqan yahay tababarka kooxda ay isugu diyaarinayso xilciyaareedka cusub 2025-2026. dhinaca kale saaxiibayaal ciyaartoyda Xavi Simons waxa uu shaaca ka qaaday ama uu kala doortay labada kooxood ee Chelsea iyo sidoo kale Arsenal midda uu doonayo maadaama labada kooxood ee reer England yihiin kooxaha laacibkan iyagu xiiseynaya. ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Netherlands Xavi Simons oo u ciyaaray naadiga RB Leipzig ayaa muujiyay inuu diyaar u yahay ku biiristiisa kooxda Chelsea kadib markii xiriir toos ah uu dhaxmaray wakiilada ciyaaryahanka iyo kooxda reer London sida uu xaqiijiyay Fabrizio Romano isla markaana uu ku shaaciyay bartiisa X Twitter. wadahadalo rasmi ah ayaa la filayaa inay bilowdaan Talaadada maanta si looga heshiiyo shuruudaha saxiixa iyo fursadda ay labada kooxood ku leeyihiin gaarista heshiis buuxa oo laacibkan ku saabsan. Chelsea ayaa marka hore u baahan inay fasaxdo ciyaartoy si ay boos uga hesho saxiixa Xavi Simons iyadoo RB Leipzig ay dalbanayso qiyaastii qiimo gaaraya 70 milyan si ay laacibkan ay kaga iibiso kooxda kubadda cagta Chelsea. Fabrizio Romano wuxuu sidoo kale uu sheegay in Arsenal wali ay xiiseynayso laacibkan 22 jirka balse mudnaanta kooxda Mikel Arteta haatan waxa ay saaran tahay saxiixa weeryahanka Victor Gyökeres iyo sidii loo diyaarin lahaa bixitaanka ciyaartoy kale oo kooxda ka baxaya. Xavi Simons ayaa si weyn loo amaanay xilciyaareedkii la soo dhaafay waxaan la filayaa in xagaagan uu ka mid noqdo magacyada waaweyn ee suuqa iibsiga ciyaartoyda lagu kala qaadan doono. laacibkan ayaana isagu waxa uu diyaar u yahay inuu la fadhiisto kooxda kubadda cagta Chelsea isla markaana kooxdu ay kala xaajooto sidii ugu beeri lahaa kooxdaasi inkastoo isagu Arsenal uu sameesha ka saarin. Arsenal ayaa isla leeyahay waxay ku mashquulsan tahay laacibka Victor Gyökeres sidii ay kooxdu u keeni lahayd kadib ay Arsenal u jiheysan doontaa in laacibkan Xavi Simons ay soo qaadato ama Ibrahim Isaaga ka tirsan naadiga Crystal Palace inay soo qaadato balse ugu horeyn waxay tahay Arsenal inay ka soo dhamaato arintan dheeraatay ee Victor Gyökeres kaas oo mar walba wiji yeelanaysa xiisadiisa isla markaana aad ay ugu adkeynayso kooxda kubadda cagta ee Sport Lisbon oo laacibkan ka tirsan yahay walow laacibkan isagu markasta uu diyaar u yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal. ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Manchester United waxay dalab amaah ah ay ka gudbisay goolayaha kooxda kubadda cagta ee Aston Villa Emiliano Martinez balse jawaab degdeg ah ayaa Aston Villa ka heshay kooxda Manchester United oo ku aadan goolahayada reer Argentina lagu magacaabo Emiliano Martinez. warbixin ay baahisay Daily Mail ayaa waxay sheegaysaa in Manchester United ay si rasmi ah dalab amaah ugu dirtay goolayaha xulka Argentina iyo kooxda kubadda cagta Aston Villa Emiliano Martinez inta lagu guda jiro suuqa iibsiga ciyaartoyda xagaagan. si kastaba noqotee maamulka Aston Villa ayaa si cad u diiday dalabkaasi iyagoo muujiyay inaysan dooneynin in Martinez ay ku fasaxaan qaab amaah. kooxda ayaana doorbidaysa in haddii laacibkan uu ka tagayo ay ku kala tagaan qaab toos ah isla markaana lacag ay ka hesho. Manchester United wali waxay doonaysaa inay xoojiso booska goolayaha kahor bilaabashada xilciyaareedka cusub 2025-2026 waxaa lagu soo waramayaa inay sii wadi doonto wadahadalada iyadoo raadinaysa xal dhexe si heshiiskan loo dhameystiro. Aston Villa ayaa ku qiimeynaysa Emiliano Martinez qiimo dhan 40 milyan taasoo caqabad ku noqonaysa Manchester United isla markaana wajahaysa haddii ay doonayaan inay la soo saxiixdaan xidigan oo si weyn lagu qiimeeyo garoonka Villa Park. Martinez oo door muhiim ah ka ciyaaray guushii Argentina ee koobkii adduunka 2022 ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah goolayaasha ugu tayada wanaagsan horyaalka Premier League. Manchester ayaana doonaysa inay hesho goolahaye maadaama Onana uu ka dhaawacay sidoo kalena BNT aysan ku tashan karin. Emiliano Martinez ayaan u aragtaa mid macquul ah walow Manchester ay ka cagajiideyso in ciyaartoydan 17 jirka ah ay ka bixiso qiimaha 40 milyan ah oo ay kooxda kubadda cagta Aston Villa ay ku dalbanayso.
Manchester ayaana rabtaa in Kulaaye ay la soo wareegto maadaama Onana uu ka dhaawacan yahay sidoo kalena Piendir uusan noqon doonin ama noqon karin Kulaayaha koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester ayaana weli baadi koob ugu jirtaa goolahayo kale oo ay doonayso si markaasi ay ugu xoojiso shabaq kooxda kubadda cagta Manchester oo iyadu soo diyaarinaysa ciyaareedka cusub ee 2025 ugu dambeyntiina Aston Villa waa ay kasoo diiday amaah kasta ay ku doonayso Emiliano Martinez iyadoo markaa ku warkeliday in ay miiska ay soo saarto 40 milyan ay ku doonayso laacibkan si markaasi ay uga iibiyaan. Guud ahaan daawadayaal inta ay kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaada ciyaaraha Dalsan TV barnaamijka mid lamid ah saaxiibayaal kulmi doona nabadgelyo.